ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in wixii ka dhacay Kismaayo ay kala xisaabtami doonaan AMISOM. waxaan rabaa in horta laba arrimood la kala saaro. annagu waxa macaamilka nagala dhaxeeyo oo meesha degan oo meesha joogay waa AMISOM. dalka Kenya ee dariska aan nahay ee saaxiibada aan nahay wax cilaaqaad xumo ah iyo wax uqdada iyo wax kala shaki ah oo naga dhaxeeyo ma jiraan. xiriirka Kenya iyo Soomaaliya maanta wuxuu marayaa diblomaasiyan siyaasiyan meesha ugu sarreysay. AMISOM African Union Mission ay leedahay waaye wixii mas'uuliyad ah ama dhibaato ah meeshaas ka dhacana dawladda Soomaaliya African Union ka iyada un baa ka xisaabtamayo. wixii meesha ka dhacay xaqiiqadoodii waxaan guddiyaal loo magacaabay baaritaanada socdo. baaritaanadaas mugay soo dhamaadaan Soomaaliya iyo African Union iyo AMISOM ay ka dhaxaysaa laakiin marna wax cilaaqaad la leh dalka Kenya iyo dawladnimada Kenya iyo Soomaaliya cilaaqaadka ka dhaxeeya marna ma jiraan. annaga iyo Kenya cilaaqaadkeena aad iyo aad isugu fiican yahay. AMISOM waa African Union ayaa iskale African Union dawladda Soomaaliya arintaas wada hadal iyo baaritaana uga socdo. xaqiiqadu markay soo baxdana dadka u soo bandhigi doonaa hadii aan leeyahay. sidoo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay arinta Xasan Daahir Aweys oo dhawaan ay gacan ku hayntiisa ay la wareegtay dawladda federaalka Soomaaliya. Xasan Daahir waa nin la garanayo nin hogaamiye ah muddadan muxuu ahaa dagaaladii dalkan ka dhacay qaybo badan uga soo jiray Soomaalida iyo meelo badan ba eedeemo looga haysto kuwa oo dawladdu hadda ummaday matashaa shacabka Soomaaliyeed hawshii oo ku soo jiray Xasan ayaa laga wareysanaya. wali waa dambiile iyo maxkamada la geynayaa iyo waa la dilayaa iyo waa laga dhacayaa mid ma jirto. dacwooyin caalami ah liisas caalami oo ku jira waa jiraan. liisaskaas caalamiga ah waxba ka rakimayo laakiin liisaskaasi hadda Soomaaliya territory-geedu jooga dawladda Soomaaliya gacanta ku hayso. mas'uuliyadiisa hadda 100% dawladda Soomaaliya ay saaran tahay. Xasan wali muxuu ahaa waraysiga u socdo ciidamada amniga wareysanayo cadaaladda systemka cadaaladda ay wareysanayo. waraysigan uu madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu siiyay TV-ga Universal ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay uu kaga hadlo xaaladaha haatan ka jira dalka Soomaaliya gaar ahaan arimaha Xasan Daahir Aweys jubbooyinka iyo waliba arimo kale oo muhiim ah oo dalka Soomaaliya guud ahaanba laga hadalhayo. سلمان جمال سعيد TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho.